wiil buuran oo dugsi dhiganayay ayaa lahaa xarig sixir ah oo ka soo jiray awoowayaashiis. marka uu xariga gacanta ku qabsado oo uu boodo wuu baabayaa. maalin walba waxa uu iskuulka ku cuni jiray cunto badan, haddana calooshiisu marna ma buuxsamin. maalin ayaa dhammaanay hilibkii digaaga ee saxankiisa yaalay, indhihiisuna waxay qabteen digaaga saaxiibadiis. gaajo daran ayaa mar kale ku soo kacday. markaas ayuu soo xusuustay xariggiisii sixirka. wuu soo bixiyey, si degdeg ah ayuu u booday, wuxuuna isla markiiba noqday mid qarsooma. ardaygii isku dayay inuu cunto digaagiisa wuxuu arkay inuu ka luntay. ilbiriqsiga gudahood digaag badan ayaa bilowday inay ka lumaan saxamada carruurta, ardayduna way wada yaabeen. laakiin cidna ma fahmin in wiilkii buurna uu cunayo digaagii oo uu si qarsoodi ah uga bixinayo fasalka. wuxuu fadhiistay jaranjarada oo si xiiso leh ugu qubaystay cunto. wax ka yar hal eber daqiiqo gudahood digaaggii oo dhan wuu liqay. markii uu dhammeeyey, calooshiisu si daran ayay u xanuuntay, wuxuuna u orday dhanka musqusha. intuu socday ayuu arkay musqusha gaarka u ah macallinka, wuuna gelay. markii uu soo nastay ayuu maqlay cid soo socota. wuxuu ka baqay in la qabto, sidaa darteed waxa uu mar kale soo bixiyey xariggiisii sixirka. wuu booday, wuuna baabaay. isla markiiba maamulaha iskuulka ayaa albaabka si tartiib ah u furay, gudaha fiirfiiriyey. markuu cid arki waayeyna wuu neeftuuray. wuu seexday, wuxuu ka bixiyey timajabiiskiisii wig, wuxuuna maroqda ku tirtay madaxii dhalaalaya ee qoraxdu ka muuqato. maamulaha waxaa ka qarsoonaa in arday badan ay hore u ogaayeen sirtiisa, balse wuu iloobay in wiilkii buurna uu meel ku jiray oo dhammaan dhacdada duubayay. markii maamuluhu baxay, wiilkii ayaa soo noqday, wuu duubay muuqaalka, wuxuuna u diray kooxdii iskuulka ee xarunta WhatsApp. daqiiqada gudaheed, iskuulkii oo dhan wuu ogaaday maamuluhu waa madax baldan yahay.